talaade dulka waacan galmudug baan hadbadinaha ka tegaya badii ragankiyo hodibay talaade bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan joognaa magaalada Antalya waxaan halkan nimid barnaamij lagu talagalay in lagu wacyigeliyo dhalinyarada qurba joogta Soomaalida ay ku dhaqan dalka Yurub kaasoo ah inay fahmaan ahmiyadda leedahay dhalinyaradu inay la qabsadaan nolosha Yurub ka jirta inay noqdaan dad wax ku ool ah oo fursadaha ka jira Yurubna ay fahmaan kadibna ka faa'iideystaan ay noqdaan kuwa berito isku xiri kara meesha dalka ka yimaadeen ummadda ay matalayaan iyo dalka waddanka ay joogaan kuwa isku xiri kara inay noqdaan marka mashruucan wuxuu ku saabsanaa اسبوع مeel Italian la joogo tababar la siinayo la ogaanayo fursadaha ka jirta Yurub in wada shaqeyn ay jirto in la shaqeyn karaan wada shaqeyn la sameyn karaan hay'adaha jaamacadaha iyo institutionada ka jira Yurub inay fahmaan qaabka u shaqeeyaan in ay ugu noqdaan wax bartay oo ay ka faa'iideystaan waxbarashada sare halka ka jirta shaqaawur inay u sameyn karaan bulshada matalaan ama ay ka yimaadeen marka mashruucan waxa soo qaban qaabiyay urur Soomaaliyeed oo la magac baxay Ururka Galmudug oo ka jira dalka Suudan magaalada Barlenge waxaa ka soo qayb galay 8 wadan ka kala yimaada ilaa 50 qof baa lagu casuumay shirkan wuxuu soconayaa ilaa iyo 26 bishan shalana nimid maanta noo furmay 26 kuna dhamaanaya waxaan rajaynayaa in natiijo fiican ka soo baxdo haddii Ilaahay yiraahdo A lot of ancient cities of Antalya like Katanos, Phaselis, Olympos, Perge. And Antalya has a lot of like canyons that you can do rafting and like a lot of beautiful waterfalls. And Adrasan, this is the place where the hotel is. Adrasan is the west coast of Antalya where you can find out the Virgin Bay with all kind of tones in blue, green, and it's like a really natural place with mountains and
darsada jiran hooyo igu dhalin I have to put or you have to put? Without. These will have it. If I talk without mask, it means that you have to put. Yeah. If I talk with mask, you don't have to. No, you do it. Do you do it? We So I can. know that some of you don't feel comfortable with that. I'm telling you the truth also. I don't feel comfortable at all. But I receive information from the hotel and also from the organizer, for the sake of all the group. At least when we are close to each other, if we talk, so it would be good to protect ourselves and to protect our colleagues as well. Okay? Just for you to take. I'm not forcing you to do anything because I know some of you don't feel comfortable. But when we talk, there is I'm working more with the universities to see how we can develop projects in Africa on education, on youth participation, and also on climate change now, environment. There is different topics and fields that you can work in your country, how you can involve and how. You just have to understand and get to know this kind of programs. There is opportunity that for sure JAMA and other members organizations here will wuxuu dhaxaalu leeyahaa gabdha dhowrsanantiyo rabbiibaa u dhaliyayo dhaqankiyo idahaa xiran wuxuu dhaxaalu leeyahaa gabdha dhowrsanantiyo rabbiibaa u dhaliyayo dhaqankiyo idahaa xiran danka xeebta camaro ceel buur ka dhaydamo xaradheere ubaxdigo hobya dhahorsanantago galsoor dhankeediyo dabki jahalka hantago dhalal weyn cadaadiyo hala dhaho